maadaama waqtigaad jacaylka sameynaysay uusan jirin sida hadda loo xidhiidho tusaale ahaan in social media laga wada xidhiidho in qof walba hadda dhalinyaraha uu teleefon sito maxaa caqabada waqtigaas jacaylkaa kala kulmi jirteen? caqabad badan aan kala kulmi jirnay waxaan raadin jirnay xilli hal waqti ama wax noola diro oo qofkaas xataa waxa ku wacd ma lahan hebelaa u direysaa hebelaa leedahay hebel miyaa caawa waxaan soo doonaa hebel meesha igu yimaado ama asaga markaas uu ku rabo inaa qad uu soo qoro oo bashqadaas book uu dhaxgaliyo ama gabar uu kugu soo dhiibo xiriirka saas uu ahaa. hadda xiriirkii wuxuu noqday in gabadhii u sahlanaato inay wiilkii la hadasho wiilkii inuu gabadh u sahlanaado oo waxa ay noqotay. laakiin in badan waxaan leeyahay inkastoo hadda xiriirka u fudaayay gabdhaha joogan ay aaminsan yihiin in jacaylkii hore iyo jacaylkan uu qiimo leeyahay. jacaylkan waa mid interesaan leeyahay waayo maxaa yeelay gabadhaas maysan heli jirin inay nacamta jaanis ay hesho ay banaan ku soo baxdo ay wiilka ugu tagto. hadda wixii iska noqday wax free ah Soomaha oo iska caadi ah. waan gartay marka soo lama oran karo noloshan social media iyo waliba casrigan horumaraya wuxuu ka qayb qaadanayaa kordhinta jacaylka badan maadaama dhalinyarta ay u sahlan tahay inay helaan may burburka jacaylka oo qayb qaadanaya. waxaa loo sababeynaa ku sheega gabadhi wiil ee la socotaa wiilka la arkaya lambarkay siinaysaa wiilkii lambarka soo wacaa lambarkaaga mashquulka maxaa waa leeyahay kalsooni darro maxay ka imaataa meesha ka imaataa marka gabadhi waxa u sahlanaanaysa in qof walba lambarka isi dhaha uu siiyo wiilkina waxa u sahlanaan in qof walba gabadh walba lambarka isi tiraad inuu siiyo meeshii marka maxaa ka imaanaa caqabad badan u taagan furinka haduu badan yahay xilligaas furinka ma badnayn furin badnaashaa maxaa keenay kalsooni darro waay inay gabadhi ninkeeda aysan ku kalsooneen gabar ay ku arkaysaa walaasheeda ma walaashiisa ma eedadiisa ma habrirtiisa ma hubsanayso waxa haboon inaa hubsato ya hadda qofka ku aragta hadda qofka markan ugu dig mar labaad ugu dig mar saddexaad markaas pointi haysta Soomaha laakiin wixii hadda adigu ku fududaato oo qofka isla markaas akalar ku dhigto aad tiraahdo hala ay furo burbur qoysa imaanay badana hadda waxa jirta ciyaal yar yar oo maanta hooyadood iyo aabahood aan haysan ee la kala tagay ya oo sabab yahay ama aabaha u sabiya oo leeyahay markay gabadhii qabsatay tiraahdo maxaa koos gareey qoftaas afara ilaahay ii banay wax shaqaad ku leedahay ma jiraan ya gabadhna ay tiraahdo ilmahaaga waa ka soo qaado iyadoo fiirinaysa ninkaas dhibka uu geysto oo kaliya maaha waa inay ilmaheeda fiirisaa ilmaheeda inay ka naxdaa weeyaan ma fahanteen hadduu dhib kugu haayo ilmahaaga aabahooda waa u sabar oo waa inaad u sabartaa ilmahaas koriimadooda iyo rafaadkooda inaad u sabartaa. waa tahay lin waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo sidee baa lagu xallin karaa kalsooni darrada soo laalaabatay ee badi timaada dhamaanayaasha dhexdooda? kalsooni darrada waxaa lagu xallin karaa gabadha markay wiilka ay ka shaqeyso hadaba wiilka ay qabsato ay tiraahdo walaalo saa insaan maxaa waa ama gabadha ay ku qayliso inuu gabadha fariisiyo dajiyo laakiin markuu yiraahdo aniga afara ilaahay ii baneeyay taan rabaan guursanaya shaqaad igu leedahay mana kalsooni darro way imaanaysaa gabadha hadii arinkaas la xaliyo xataa eragaas ayay ku dhageysaa waxa la eragaas hore ku yiri ma aaminayso markii gabadhan habartii dhashay ama odayga dhala u yimaado gabadheeda saana yeesha ayagoo hubsanin waxba gabadhii saanaysa ariga gabadhii kaliya ay soo qaadaan ee gabadhii saana yeesha ama gabadheena nofr ay yiraahdaan ee meeshii xataa furin oo dhaco wax natiijo ma ahan. waa kartay dhanka jacaylka maadaama qof ku wanaagsanaa tahay kaalmaha suugaanida jacaylka hal kamid ah hadii aan ku dhaho hal daqiiqo ama wax ka yaraan ku nasanaa nakii daawadayaasha xanoo soo qaadaan in badan ciidaay horta jacaylka aad u fara badan yahay erayada jacaylkana halkan lagu soo koobi karo heesa halkan ku soo kooba hadaan ku dhahan ku soo koobi karo waxa iga buuxa ka badan Soomaha in badan laakiin hal hees oo ugu dalgalay daawayaasha ayaan u qaadayaa goor badana guri barwaaqano gogosheen xuriyo no gogosheen maxaa gacalkii kala geeyay gacalkan adduun waa ku gabaabayay guulka ma gaarine
gibilkay dhammaan waa gubtee guulka ma gaarine ma gaaraysidee geedkii kaaska weyn waa laga gaarsadaa waa laga gaarsadaa goobta manay ahayn waa laga gaarsadaa waa ku mahadsantihiin soo dhaweyntiina waa tahay anaguna sidoo kale waan ku mahad celinaynaa wareysigeena ayaan iska sii wadan doonaa weli jacaylka iyo dhankiisa ayaan sii gudagelaynaa mararka qaar waxaa dhacda in waalidiintu ay isu diidaan laba qof oo ugu yaraan sanado badan wada socday sidaad adigaba ka dhawaajisay dhibaatadaasi markii ay dhacdo soo lama odhan karo waalidiinta qaar waxay dhalinta ku kalifaan inay sameeyaan guurka qodbasirada ama masaafada in badan ciidaay laakiin waxaa ku kalifaysaa gabadha in badan wiilka markay wada socotay ee ama aabaha u geyso ama hooyada u geyso aab iyo hooyo wiilkana wataa ay tiraahdo in aabaha uu yiraahdo ani wiil adeerkaa dhalaa ku siiyey ama habarta ay tiraahdo wiil abtigaa dhalaan ku siiyey maxay tahay wiilkaa sheegaysid wiilkaa isma geyno isku qabiil ma nihin waxba isuma nihin maxaana maba rabo wiilkan inuu soo galo wiilkii waxaa laga yaabaa in markaas dhaqaale asaga oo ku filan oo yar inuu haysto haddii gabadhii ay kusii madax adeegta ay tiraahdo wiilkan ilaa inay tiraahdo in wiilkii la yiraahdo qarash intaas keen uusan awoodin waxaa laga yaabaa hooyadii maanta dhan inay nolol maalmeedka guriga ay soo dhicinaysay nolol maalmeedka gurigaas ay keentay inay wax ay ka reebto ay meel ka dhigto tiraahdo bal mustaqbalka wiilkaaga iyo futureka wiilkaaga bal aad ku ilaalisid markii laakiin yiraahdo ama $1,000 ama $2,000 cidina taaqadooda ay tahay inay maanta xataa aysan 200 awood usan lahayn hadee 100 soo gashay 20 meel ka dhigaan misbixinaysaa caqabad hadda badan u darto markaad tagto darxabee oo kale aad tagto aad gasho waxaad arkaysaa dhalin badan ku waalatay jaceylka waa gartay een sabab u yihiin waalidiinta waa gartay marka waalidiinta waxaan ka codsanayaa ayagoo maanta xilligii wax iska xun uu noqday dhalintii oo shaqo badan aan haysan haddii gabdhihiina ay idinku imaadaan inaad adinka saacidaan aad garab siisaan adduunka u jeedin ninka maanta waxaysan bir wax u helayaan ma iga codsi meel walba aad joogtaan ama dal ha noqoto ama dibad ha noqoto inaad saacidiin haddii wiilkiina oo gabadhiina oo wiil idin keensado oo wiil ay imaato oo wiil uu yimaado oo waxba uusan haysan isku daya inaad saacidiin ajir baa ilaahay idinka siinaya idinkana waa tahay dhinaca lacagta oo kale haddii aynu eegno waxaad mar hore ka dhawaajisay guurka iyo jacaylka labadaba inay interest noqdeen lacagtu saameyn intee leeg bay jacaylka ku leedahay in badan maxaa yeelay wiilka markuu gabadha aad u jecel yahay oo in badan jacaylkooda ay soo wada dhisteen gabadhii xataa gabadhii waxay isku daysaa inay wiilkan saacido lacagta lagu sheeganayana ma awoodo oo awood uma laha haddii xataa maanta ay raadiso awood uma lahan waxaa leeyahay hoteelka hebel lagaa rabaa inaad kiraysid waxaa lagaa rabaa lacag intaasoo milyan lagaa rabaa intaasoo kun lagaa rabaa asagana awood uma laha gabadhii way jeceshahay hadda waxaa dhacday in gabar ay wiil dartiis isku disho ama gabar wiil gabar darteed inuu isku dilo maxaa sababay waa caqabada dhexda taagan ama gabadhaysan ninkii aysan ka ahaan karin wiilkiina gabadhaysan ka ahaan karin caqabada meesha dhex taagan ay tahay lacagna aan gacan lagu haynin watahay marka ma la dhihi karaa xilligii hore ma jirin lacag la isku xujeeya may gabadhii lagaa soo doonto haddii lagaa soo doonto reerkaas gabadha iga wataa la dhihi jira sida ugu dhaqsiyaha badan iga wataa meher iyo gurjoog midna ma jirin iga wado meherso iga wado hadda waxaa arkaysaa dhalin badan oo hadda waqti xadarkan ee isqabaan qabitaankooda banaanka aan soo dhigin karin daruuf jirta aawadood maxaana sabab u ah waalidka sabab u ah ya gabadh inay markaas diraa marka eray lagu soo qaado ana guur ma rabo ayna nin ku xiran tahay ya waana caqabada jirto wiilkaan isma furdaamin karo gabadhiina wiilka wax ma siin karto awood uma hayso ayadaaba nolosheeda lahaayaan sidee marka caqabada intaa leeg ee dhalinta guurka ka haysataa looga bixi karaa dhalinta awal waa horta dhalinta in horta ayaga meel loo sameeyaa dowladda waa inay ayada meel horta dhalinta ay u sameysaa ay dhalinta wax soo saartaan wax ay qabsadaan ninka dhalinyarada markuu asaga wax qabsado wax soo saar loo sameeyo oo wax uu qabsado waxna uu qabsan karaa soo maahan laakiin qofka haddii dhalinta maanta banaankaas iska taagan yihiin
ee waxba aysan haysan ee taakuleen aysan dawladda ka haysan ee waaridkii waxa nolol maalmoodkooda isbixin karin wiilkii jacayl uu rabo jacaylkii wax lacag uusan u haysan maxaa imaanaysa wiilka ama inuu ku dhufto ama inuu isdilo